يوميها جامعة وين جوليس عبد حسين أو قاس maanta xafladeenii si wacan ay dabcan idinku dhacday laakiin madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland ayaa ka soo qayb galay 30 daqiiqo kadib laakiin waa ka baxay baa leeyahay madaxweynaha haddana yimid sidee wax yihiin bismillaahir rahmaanir rahiim sida madaxtooyadu noo sheegtay intaan event-kani dhacayba laba qorshe jiray labada qorshe waxay ahayd in madaxweynuhu tago Mansuur furitaanka garsoorka annagana waxaan jaamacadadeena loo qaybiyay in madaxweyne ku-xigeenku uu noo yimaado madaxweyne ku-xigeenku uu noo yimid markuu xoogaa nala joogay ayaa lala soo hadlay waxa la yidhi madaxweyne baa soo gelaya ku soo dhaweey halka garsoorka uu baxay madaxweyne ku-xigeenkii surprisingly waxaa noo yimid oo soo bedelay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland Musabixina uu sharxay sababta uu yimid waayo surprise bay noogu noqotay wanaagsan annaga waanu sharxayo codkiisa wixiisa waa maqli doontaan iyo aragtidiisa wuxuu sharxayo marka waxay qorshe uu isbedelay waxa ku adkaatay madaxweynaha isagoo halkan jooga in arday 900 oo arday inuu ka tago isagoon odhanin muxuu ambalyo intaas isagaana sharxay laakiin aqoonyahana waa tahay waxaad dawaan ogeydin jaamacadii Burco macala wasiiraan ay tigid marka idinku maxay laga yaabaa in arrintaasi ay ku suurta gashay labaduba wallahi ota gudoomiyii jaamacadda Golis Burco uu fadhiyo ka jawaabi laakiin waxay haydoon wax nasiib oo sida u dhacay bahayd laakiin Cabdixakiim oo gudoomiyahan jeclay inuu su'aasha ka jawaabo runtii haddaan kaga jawaabo su'aashaas waxa weeyaan jaamacadda Burco way cadaysay inaanay madaxweynaha casuumin sida daraadeed ay ahaydun wax social media iyo qorshe dhexe oo dad gaar ah ay sameeyeen laakiin hore ayay u cadaysay jaamacadda Burco inay casuumin madaxweynaha annagu se jaaniskayaga ayaa nasiiyay in madaxweynaha isaga oo xalfad kale jooga uu nagala soo qaybgal xalfadeedii mar labaad marka qorshuhu caynkaas ayuu ahaa sida uu gudoomiyaha jaamacadda Burco sheegayna wad ogtahay inuu cadeeyay in aan wax xasuumada madaxweynaha u fashay madaxweynaha u fadin sida daraadeed lama oran karo muxuu madaxweynuhu maanta tan u yimid wada dhacdaa inta badan jaamacaduhu way soo dhacaysay in madaxweynayaashu ay yimaadaan kuwii ka horreeyay madaxweynahan ama aanay iman madaxweynaha shaqa marka waxaan u arkaa arrintan inay tahay Janice Golis ay maanta dheer tahay jaamacadaha oo dhan in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiiba ay isugu yimaadaan waxaan dareemayaa dad le muxuu madaxweynuhu jaamacadda ugu tagay haddii madaxweynuhu markuu ka baaqdo qalin jabina la odhanayo madaxweynaha jaamacadii dan kama leh iyo ardaydii maalintu tagana uu siraahdo ardayda la qaybsa farxadana la odhanayo muxuu u tagay horta taalafteedu waa nasiib darro oo si la yeelaba la garan maayo wuu imanayaa qaar horena wuu tagay qaar dambena wuu tagay intuu halkaa ka safray buu boorama tagay madaxweynuhu si uu gala qayb galo ardaydii jaamacadda Camuud annagana albaabka nagu xigu joogay wuu noo soo wareegay Mansuur wuxuba horta waa intaa bulshadana waxaan u sheegaynaa jaamacadda Golis inay dib u bilowday ardaydii iyo isqoristii oo ay socoto oo ay ka soo qayb galaan isqorista iyo isdiiwaangelinta ardayda cusub ee sanadkan 2018 waanan mahadsantiin Bedri